asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh waa ujeedaan cunuga yaraan markaan wuxuu siduu soo socday wuxuu arkay wiil saaxiibkiisa oo iskuulka markaasi isla dhiganayeen. Wiilkii ayaa wuxuu weydiiyey xagee ka baxday, waa lagu waayay, maxaa dhacay. Markaasuu wiilkii yaraay wuxuu aga sheekeynayaa qisooyinka iyo waxa qabsaday iyo waxa iskuulka sababta ugu maqnaay. Cunugii yaraay ayaa sida ku sheekeynaya oo wiilkii yaraa ugu sheekeynaya waxyaalaha qabsaday iyo dhibaatooyinka uu soo maray. Wiilkii yaraay ayaa wiilkan wuxuu u sheegayaa uu leeyahay insha Allah taala garab ku siinaya, aniga ayaa ku garab taagan oo waxaan ku geenayaa macallinkii iskuulka. Kadib waxaan isku dayaa macallinkaasi inuu garab ku siiyo oo gurigii sidii lagu celiyo. Waa kana cunugii yaraa isagoo mar walba niyad jabsan ayuu hataa aan ku qanacsanayn in macallinka hataa waxba u qaban karin ayuu niyadda dhisanayaa. Waa kana wiilkan ayaa hadda wuxuu leeyahay soo bax waxaan ku geenayaa macallinka ayaa garabna ku siinaya. Waa kana sidii ayuu ku qancinaya wiilkii. wax yar wuxuu aga sheekeeyay in adduunyada ay tahay wax iska dhib badan. waa kana waa isa soo raaceen, waxay soo aadeen dhanka iyo macallinkii ayay soo aadeen. labadii wiil waa kuwan markaan waxay u yimaadeen macallinkii iskuulka, ayay u yimaadeen gurigiisa ayay yimaadeen ayagoo ku tashtay inay macallinka ka dhaadhiciyaan wiilkan xaaladda uu ku sugan yahay. waa wiilkii eedadii arxanka darneed guriga ka soo burisay. wiilkan ayaa waxay isla dhigtaan iskuulka. kadib wiilkan ayaa wuxuu ka ron yahay oo wuxuu u aqriyay in macallinka ay u tagaan gurigooda ay tagaan. kadib macallinka arintii ay la socodsiiyaan. macallinkana kadib wuxuu kula taliyo ay qaataan. waa kana wiilkii Rona ayaa arintii u sheegaya macallinkii oo rabo inuu ka dhaadhico, laakiin wuxuu tusiyay wiilkii yaraa ee eedada arxanka darneyd soo burisay. waa kana macallinkii ayaa wuxuu leeyahay maxaa dhacay oo maxaa sidaan ku galay, maxaa dhacay iskuulkii, maxaad u imaan waysay, maxaa sababta aad sidaan u duleysanta maxay tahay. macallinka ayaa sidaan u weydiinaya oo wuxuu taariikh ahaan kadib ugu sheekeyn doonaa qisada iyo waxa qabsaday. macallinkii ayaa la yaaban xaaladda cunugan ku sugan yahay, laakiin waa kana cunuga yaraay wuxuu macallinka ka dhaadhicinayaa xaaladda uu ku sugan yahay iyo sida oo loo galay eedadii arxanka darneed sida ay u gashay. macallinkii isagoo arintan ka naxsan ayaa wuxuu isku dayaa cunugii inuu naxariis u fidiyo, uu soo wada kadib oo aabihiis u keeno si arrimahan ugala hadlo. laakiin intuusan soo wadin ayuu ka dhageysanayay xaaladda iyo waxa cunugani sidaan u galay. cunugii yaraay ayaa saan u faahfaahinaya, macallinkii faahfaahin badan siinaya iyo waxyaalaha qabsaday iyo dhibaatooyinka uu soo maray. eeda arxan la waa tan. wiilkii qisada yaraa wixii ku dhacay macallinkii ka dhaadhiciyay. macallinkana gudahii ayuu galay, guriga ayuu ku noqday, wuu soo labistay oo kadibna waxaa go-aan lagu gaaray in gurigii lasoo aado ee eedadii arxanka darneed joogtay. odaygii wuxuu macallinka ahaa go-aanka wuxuu ku qaatay oo ku gaaray cunugii inuu soo wado oo uu keeno gurigii aabihii inuu keeno. macallinkii waa kana hadduu soo qaadayaa wiilkii yaraa iyo wiilkii kale la socday. saddexdoodaba waxay soo aadayaan gurigii aabihii ee eedadii arxanka darneyd joogtay
أصحابي وأجدان حلقة مش مرة.